gabadhani qosolkeeda waxay ku qaadataa 30 milyan oo dollar. Dhoolla cadayntuna dhinaceeda bilaash kama aha sida dadka caadiga. Haddii ogow, mar ayaa lagu faquuqi jiray in faqriga faraqa loogu xiray oo miskiinnimada fir u heshay. Bacdama markay hooyadeed umushay uu aabaheed awoodi kari waayay inuu bixiyo lacagta cusbitaalka, waxay ku soo ababtay kabaryeeri maqaayadeed iyo booyaasanimo. maantana waa maalqabeenay dunidu u kuftay, allena dibnaheeda u barakeeyey. waxay ku faantaa in dhoolla cadaynteeda quruxda badan ay iftiimin karto magaalo dhan oo mugdi ahayd. shirkadaha waaweyn ayaana ku baratama inay wax soo saarkooda u xayeysiiso, iyagoo dhoolla cadaynteeda la dhacsan kagana bedelanaya malaayiin dollar. ardaydii ay wax wada baran jireen ayaa ku faquuqi jiray foolxumo, iyagoo wax ka sheegaya dherarkeeda, inay afweyn tahay iyo inay caato tahay ayaana lagu faquuqi jiray. gabadhii sidaa loo faquuqi jiray ma aaminaysaa inay dhowr jeer ku guulaysatay quruxda haweenka adduunka? waraysiyadeeda waxa ay ku sheegtay in faquuqu uu ka dhigay mid nolosha cabsi ka qabta, waxaana looga maadaysan jiray inay leedahay lugaha ayaxa, ilko kuwa fardaha amoodo iyo tin bisbisa. dadka ayaana dhowr jeer kula taliyey inay isku samayso qalliimada caagga, balse aad ayay uga soo horjeesatay. wax kaleba ha joogaane xataa maykabka ma jecla. gabadhii maqaayadda kabalyeriga ka ahayd ee $5 qaadan jirtay, ilaahay wuxuu qadaray inay noqoto maalqabeen hantideeda $250 milyan oo dollar lagu qiyaaso. gabadha aan ka hadlayno waa Julia Roberts, atariisho dunida caanka ah oo ku laba qaraxday jilista aflaamta jacaylka iyo majaajilada isugu jira. dad badani waxay u riyaaqeen filimaanteeda ka hadlaya burburka qoyska, kuwa qaadaya nolol adag oo qof soo maray, jacayl uu ku guulaysan waayey, iyo filimada inta badan dhibaatooyinka adduunka ka sheekeynaya. intii ay ku jirtay jilista filimada waxay si isdabajooga ugu guulaysatay abaalmarino waaweyn. hantideeduba maalinba maalinta ka dambaysa waa ay sii kordhaysaa. iminka oo la joogo 2023 waxay haysataa $250 milyan oo dollar. atariishadan looga haray filimada romantiga ee Julia Roberts waxay dunida ku soo biirtay bishii Oktoobar 28 1967 iyadoo lagu baleeyay magaalada Selma ee gobolka Georgia ee cariga Mareykanka. Julia lama mid aha gabdhaha qayrkeeda. nolosheedu waxay ku bilaabatay filim, waxayna ku dhamaatay filim. waxay ahayd cunuga saddexaad ee qoyskooda, waxaana la dhashay wiilka ka weyn ee Eric Roberts iyo gabar lagu magacaabi jiray Liza. dhammaan qoyskoodu waxay shaqo ka dhigteen jilista filimada sababo badan awgood, maxaa yeelay hooyadood iyo aabahood waxay ahaayeen jilayaal. aabaheed wuxuu ahaa aktar guuldaraystay oo jecel inuu jilo filimada doomaha ka samaysan tiyuubka taariikhihii hore, halka hooyadeed ay ahayd sharciyaqaan iyo weliba atariisho. laakiin labadeeda waalid midkoodna ma soo higsan heerka ay maanta dunida ka joogto gabadhooda Julia Roberts. labadeeda waalid waxay furteen iskuul jilista filimada lagu barto. markii filimaantoodu ay guuldaraysteen, dhaqaale xunna ay la soo diristay, si lama filaana ayaa iskuulka waxa ugu biiray caruur uu dhalay udoodihii ugu horreeyey ee u dagaalama xornimada iyo xuquuqda dadka madow ee Mareykanka, Martin Luther King. waxaana nasiib wanaag ahayd inuu bixiyey lacagtii umulinta markii ay dhalanaysay Julia Roberts, bacdama aabaheed uu waayey lacago gabadhiisa lagu daryeelo. tiyo uu ka mahadnaqayo sida wanaagsan ee caruurtiisa loola dhaqmi jiray xilliga ay dhiganayaan iskuulka lagu barto jilista filimada. dhibaato weyn ayaa soo wajahday markii ay kala tageen labada waalid. Julia iyo Eric ayaana ku soo koray si dhib badan, iyagoo xataa alifay tabal lagu hoogo si ay uga baxsadaan faqriga iyo silica. waraysiyadooda waxay ku sheegeen inay soo mareen waayihii ugu adkaa ee aadami ku koro. gocoshada ugu badanna waxay ka qabaan adeerkooda ama ninkii saddexaad oo hooyadood guursada. jirdilkii iyo faquuqii joogtada ahaa ee uu ku hayay ayaa keenay inay ugu yeeraan cirfiidkii bini'aadanka aan sinjiga la wadaagin. ugu dambeyntiina hooyada dhashay Julia ayay kala tageen ninkii nolosha ku ciqaabay caruurteeda, waxayna ku qasbanaatay inay ilmaheeda nolol wanaagsan u raadiso. nasiib darrose hooyadood shaqo la'aan iyo jirro ayaa isugu biiray. sidaa awgeed Julia iyadoo 13 jir ayay bilowday inay kabaryeri ka noqoto maqaayad biisaha lagu iibiyo, iyadoo isla markaana dhigatay iskuulka sare ee Campbell College. xilliga maqaayadda waxay ka qaadanaysay xoogaa lacaga oo aan dabooli karin baahiyaha qoyskeeda. kadibna maskaxdeeda waxa ay ka heshay fikrad ay faqriga kaga bixi karaan.
iyadoo u jihaysatay dhinaca fanka, waxaana sii xoogaystay jacaylkii ay u qabtay turumbada. iyadoo raadinaysa fursad ay nolosheeda wax uga beddesho, waxay dhowr jeer ka qayb gashay tartanka quruxda intii ay iskuulka dhiganaysay, laakiin marna kuma aysan guulaysan quruxda. maxaa yeelay hibadeeda ayaa kusoo shaac baxday shirkadda filimada Hollywood-ka, waxaana xusid mudan filimkeedii ugu horreeyey inay kasoo xirootay lacag dhan 80 milyan oo dollar, kaasoo xaquuq ahaan looga siiyey 90,000 oo dollar oo dhinaca jiliinka. gabadhii uu lacagta umulinta ugu yaboohay Martin Luther King 1967 ayaa gaarigeedii Rolls Royce oo ay haysatay 33 sannadood waxa lagu iibiyey 7 milyan oo dollar magaceeda darteed, halka suuqa uu ka joogo isagoo cusayba 2 milyan oo dollar. maanta dhoola cadaynteeda kaliya waxay qiimo ahaan u joogtaa 30 milyan oo dollar, halkii xayeysiis oo qosolkeeda la dhexgeliyana waxa shirkaduhu ku bixiyaan maal adduunan xad lahayn. bishaaro Soomaaliyey, tani waa fursaddii aad faqriga iyo busaaradda kaga bixi lahayd. haddaad tahay qurbajoog qaata cayra ku filayn, haddii deymo ku daashaday ay dhigga kaa reebeen, iyo kol haddaad shaqo la'aan Afrika ku tahay, waxaan ku haynaa fursadaad 10,000 oo dollar ku tabcan karto. kaalay noqo maalqabeen muddo kooban ku hela lacag xalaala oon xad lahayn. shirkadda caalamiga ee Forever Living oo laga leeyahay waddanka Mareykanka waxay idin haysaa fursad ganacsi oo dahabiya. haddii aad joogto dalkeena hooyo ee Soomaaliya, ganacsigan waxa ku bilaabi kartaa lacag ka yar 398 dollarka Mareykanka. kol haddaad joogto wadamada qurbahana waxaad ku bilaabi kartaa dhaqaale aad u yar. haddaba la xiriir Manager Cusmaan oo ah ganacsade Soomaaliya oo 4 sano gudahood ku noqday hantiilaha ugu jeebka buuran shirkadda ganacsiga ee Forever Living. Manager Cusmaan wuxuu ka caawin doonaa sidii aad hadafkaaga iyo riyadaada ugu rumayn lahayd shirkadda Forever Living oo dad badan baraare iyo barwaaqo u horseeday. haddaba kala xiriir WhatsApp number +1 41 65 79 80 53.